hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalk Soomaaliya ayaa amaro dhinaca amniga waxa ay ka soo saareen amniga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo maalmihii la soo dhaafay magaalada Beledweyne ay ka socdeen howlgallada ayaa intooda badan waxaa lagula dagaalamayay dadka isticmaala ama ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya iyo sidoo kale dadka sida sharci darrada hubka ku dhex sita gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana howlgalladii ugu dambeeyay saraakiisha ciidamada ay sheegeen inay ku soo qabteen dad aad u fara badan taliyaha guutada shanaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Colonel Farax Kooshin Waasuge Farax Kooshin ayaa sheegay in marnaba magaalada Beledweyne aan lagu dhex arki karin hub sharci darro ah hubka sharci darro ah ee magaalada lagu wato si abni loo sugayaa hadii hubka uusan noo tiro koobnay hubka magaalada lagu wato waxa loo ogol yahay ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan dadka shacabka ah ha geysto guriyihiisa ha u qaato meeshay u yiileen magaalada hubkii aan kula wareegno oo aan ku qabanno waa la wareegaynaa maxkamaduna marqaati ka tahay maxkamadan keenayna waa la wareegaynaa dadku ha dhigto bariyan waxa la caadeystay in laba nin haday isqabato qolaba hub la soo baxdo dhulaan isku haysanaa qola hub la soo bixi meesha nidaamka ka jira dawladnimo ka jirta dadku waa soo dacwood laakiin reer hebel dhulay isku haystaane qoryayna saaka isku haystaan ugu dul qaadan mayno wax badan aan odayaashana la hadalnay u sheegnay haddana odayaasha sharafta leh waa gaarsiinayna arintaas in aysan dib daba u dhicin waxa soo heray ragga khamriga iyo calaqa iyo cashiishka magaalada ku caba maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa xeer ilaalinta in raggaas maxkamad la horgeeyo ciidamada amniguna waxaan ka codsanaynaa inay tallaabo qaadaan soo qabtaan cawiya maalin u taagnaadaan waa cadow waa wax islaamnimada ka baxsan waa wax ma yaqaan hooyadiis dilayna lama oga aabihii dilay lama oga dadkii laayeen dhanka kale xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad Dame Maxamed Cabdiqaadir Maxamed ayaa isna dhankiisa sheegay in hubka ay leeyihiin qabaa'ilada ama shakhsiyaadka ay ka saaraan gudaha magaalada Beledweyne lagana aadaan dhinaca miyiga cidii ku dhex qaadatana ay u aqoonsan doonaan nabadiida sharci darrada ah magaalada lagu haysto dalkan 30 sano ayuu burbur ahay 30 sano oo burburka ay qabiil walba wuxuu yeeshay hub u gooniya dawladda hub ka badan ay qabiilada gacanta ugu jiro walina system guud ama amar guud oo dawladda ay ku xalinayso arintaas kama aysan soo bixin laakiin laamaha amniga meelaha ka shaqeynayaan cid walba muwaadin walba wuxuu xaq u leeyahay dawladda inay amnigeeda sugto muwaadinkan waxa xaq loogu leeyahay inuu asagna raaco amarka dawladnimada hubka qabiilada ay leeyihiin ama shakhsiyaadka ay leeyihiin waxa leenahay magaalada ka bixiyay miyiga geeya ama guriyihiina dhulka hoostiisa ku qarsada ama soo diiwaan geliya hubka magaalada Beledweyne waxa loo ogolyahay dhowr qaybood bis inay hub ku qaadan karaan waa 4 ciidan iyo ciddi kale ogolaasho ay u siiyaan laamaha amniga ma ahan markii ugu horeysay saraakiisha ugu sareysa ciidamada xoogga dalka ee ka howlgala deegaanada maamulka Hirshabelle oo amar ka dhan ah dhinaca amniga ay soo saaraan balse ma ahayn horay kuwa u dhaqan galay mana la oga sida ay ku dhaqan gali doonto Cabdinuur Cismaan Aadan Carays idaacadii TV-ga caalamiga SBC magaalada Beledweyne.